الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ما أنت وتاريخ ضعيتهاي أفرت بشي كوي تبنات لبض كل لباطين لبض وحاء مالين جمعة يتهاي وإلهي مهدي سبحانه وتعالى كل رنتي وحان كل صنهاي آد يادو قيم بدن فرحت بدن رنتي عن دريمينو وحانا لجوغو ومرتين لبا قبلود ومسلمين جدد إسلام ماذا كعصب ودور مالمود لقى جوغو اختصاص إسلامين سدحي أهايين مدانا مقن وحنونسن الله يعافيه سبحانه وتعالى وحان كلو إلهي سي خاصة ومهد علنا سبحانه وتعالى إن سدح ذاس صوته إلهي يقدق جل جلاله بدنا تاريخ ذا الشيخ أنا كشيكين دونه ولقي ما أركن أنيقو لكن وحنكون إسلامتي تلافونك بانس كما قلني أنا وضوح جوجو ولكن إن شاء الله تعالى وحنا لجوجو قبل دعاء الله بركي أو رنتي أو أرنتاسي كفر حي هديات نقصة طلقلي قبلها مؤمنات عصب هذا قبله وحيكون حجران قبلها ندح فديان هاي كانوا يهدد الدونان إن شاء الله تعالى وقبلها جلبابك قدودان حران يمتاز جلبابك عغاركو حران وجه فران لبضو ضبا مركا الحمد لله سي خاصة هندي لبضان قبلو وحي قرقين لجوغان خاصة قرقيقا dadka caawiyo ay kamid yihiin oo runtii guriga shaqadiisa hawlihiisa nagu caawiyo gabadha kalena soo islaamtana waxa weeyaan waa ganacsato oo islii ka shaqaysato marka inayna imaato waan rabi lahayn laakiin xalay ba waxaan maqlay in ambulance lagu qaaday laakiin gabdhihii waxay diyaar u yihiin in hadiyadeedana gaarsiiyaan istaalkeedana ku booqdaan wayna ismaqleen oo ila hadleen marka walaalayaal soo dhawaada aad waan u faraxsanahay runtii walaalaheen ilaahay subxaanahu wa tacaala ka badbaadiyey gaalnimadii oo diinta islaamka qaateen oo wax aad loogu farxo mid gaaban ayaan si fiican u sheekaysanay oo aad u hadlaysay tan kale waxa weeyaan hadalkeedu iska yar yahay markii la ii turjumayay walaalkii cabdimaalik ii turjumayay ayaa marka wax badan bay noo sheegtay marka waxyaabaha ay sheegtay waxaa ka mid ah runtii oo aad iyo aad qalbigayga u taabtay waxay sheegtay horta inay Soomaali badan u shaqeynaysay intaasna waxaan ku garanay raashinkii Soomaalida way garanaysaa cambuulay ku leedahay bariis baasta ay leedahay waxay garanaysaa raashin wixii guriga lagu karinayo oo maxay ahayto canjeeradii markaas waxay u dhahday Soomaali badan aan la shaqeeyay intaan joogeen shaqeynayo Soomaaliyan caawin jiray islaamnimada runtii waan jeclahay markasta wartay markaan u sheegayno waxaan dhahnaa qasab ma ahan hadaad jeceshahay soo dhawow hadaadan jeclayna waa waqti qaado soo fikir laakiin wax walaasa ma jiraan hadaa islaamtidna waad nala joogaysaa hadaadan islaaminna waad nala joogaysaa shaqada iyo isku ma xirna laakiin waxaan jecelnahay in ilaahay diintiisa soo gashid maadaama diin macaan aynu haysano ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu garanayno marka waxyaabo ay sheegto waxa kamid ah Soomaalidu waan arkaa mar waliba way is jecel yihiin way is salaamaan anigu waxay dhahday markaan dharka iimaalaha dhaqaayo way soo maraan waxay leeyihiin salaamu calaykum anigu muslim ma ihi salaantaas inay khaas muslimiinta u tahay baan aaminsanahay ma khiyaamiyay dhahday marka been ina u sheego mar rabo waxaan ku dhahaa bazuuri ma dhahay بزور زهنا مالنا مركز جوابت البحناي امتى سأقول جواب جريدة يعني وحان ديدا إنا إسلام كخياميو ما دام سلامته إتهاي ذاتك إيمانا أنا إسن إجرني إنه إنا مسلها إيميلين ما دام الصومالي أنشبهه ما خيامي جرني هذا بنتن ونعبة إسلام مدن وانجعلها هاي لكن وحان أمي وحان لينا إن اللي ديدا هدان ده إسلام من رباه إسن أقلين مركز وحقيقة صوب بعد المشى إن رنتي ذاتك مساكين تا oo muslimiinta ahayn khaasatan gabdhaha aad u jilicsan yihiin oo diinta islaamka in la soo galaba u maleynayaan in lacag laga qaadayo ama dadka loo diidaa leeyahay diintan waxa u soo gasheen oo ansurid ay ka jirto
marka waxay dhahday waxaa kaloo cajiib ah hal qof oo Soomaali ah oo diin ii sharxay oo muslim ma tahay ama gaal ma tahay gaalnimada ma ka soo baxdid ama ijeclaysiiyay ima soo marnay maanta ka hor waan ku faraxsanahay waana jeclahay haddaan islaamna shahaadinka u qabanay alxamdulillah way qabaysatay salaadii cibaadada sidii ku bilowday gabdhihii marka sidii ku caawiyay waxaan kaloo idinka jaahil bixina dabcan laga yaabo kaamirada inay dhahaan gabadha meeshan fadhiso maxay tahay marka tan xaaskayga waay Saacidi Xaaji Yusuf faldaha saas ahaan waxaan u dhahnay marka inay dhinacayga soo marto dhinaca wal wax kasta waa in la iska shaka bixiyo oo loo baahan yahay marka insha Allah taala gurigeedana joogan ayadaan runtii ugu caawisay oo sabab u ahayd ayadaan matal labaad markii emergency horeba ayada ay dhahday gabdhihii waa diyaar ka faa'iideysay Sheekh Xasanow dadna u keenso oo ku turjumo la hadal waxa kale aad noo caawiyo Allah barakeeye walaashay fartuun oo ku magac dheer iyay ku magac dheer oo xaafadda saas loo yaqaano ayadana walaashay ah marka ayadana de afkay garanaysa wadanka cabaaray joogtay marka turjumaan ahaan bay u turjuntaa marka insha Allah taala muslimiintu waxaan u sheegaa marka diintan macaan iyo wanaagana haysano in dadka masaakiinta ah am diin lahayn qof dhan oo socdo oo khaaliqiisa aan garanayn xanuun badan ay leedahay xaqiiqatan qof dhan oo socdo oo qofkii abuurana garanayn ama calaaqaan la lahayn ama ilaahay aan caabudaynin mideeda kale qofkan aduu ku shaqeeya ama gurigu ku jooga qofan muslim ahayn oo ilaahay aaminsanayn oo diin wax uu leeyahay yaraata aan jirin adinkaas hadii col dhaxdeen dhaco masa ama xumaad dhaxdeen ay dhacdo dadka wuxuu ku reebanay malaha saamada cagsi dadka waxay u maleeyaan gabdhaha markay gaala yihiin waxa walaha waxay warka soo gaaray markay gaala yihiin nashaad ay leeyihiin way shaqeeyaan haday islaam noqdaan عجز بالغ dareemayo marka islaamnimada saas awgeed maadaama ay guriga antiis ka cajisayso islaamnimada ay u diidaan oo waa laga xajubaab waa laga reeba ayadoo ficil oo iyo la soo daraayo ayaa wax si farsameysan baa loogu reebayo looma bashar xaba ha ahaato gaal ha ahaato saas ku dhimato jahannama ha gasho waxba igama gelin ilaahina wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas وشقدنا ما حيتها تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر مركا قبلها قريها جوجو وحين الله يهي النبي يقول صلى الله عليه وسلم هل روح أو سبب نقطة إنه الدين الإسلام كالصوغ قالوا أيا وحكاها خير بدن وحد الله الدنيا يالو وحكستا هذا خير لك من حمر النعم مركن لأوليه النبي عليه الصلاة والسلام geelu ka wada geela midkiis gadgaduudan waayo qofka milyoneerka ah oo taajirka ah waxa ugu qaalisan uu haysto wala la yaabi jiro la dhihi jiro hebel wuxuu wato ma aragtay la yaabi jiray waa geela gadgaduudan oo la goyn karin lacagtiisa taasoo noogu cabir calayhi salaatu wasalaam marka waagaas dadkii joogay qof ugu taajirsan wuxuu ku faani jiray haystay wax la mid ah ayuu ku tilmaamay hal ruux ilaahay sabaqdu kaaga dhigo waxaan ku faraxsanahay وفرحة كان لما شاركينا الحمد لله سدح قبضات يهل ويلا حسوسنا انت دين الاسلام كسوقش انت نيروبي كينيا انا عن صوق الحمد لله هذا فضل الله وحل غفانه ولله الحمد والمنه لاجل هذا مركو حان لي قف كستنا هل قف لبو سدح هكينو خاصه ددك افكي يقانو كسواحلي كو هادلي كارو انجليش كو هادلي كارو لغداس غرينيسين الهي ودن حسابين دونا هذا كفايديسنين والهي ugu dhawaaneen subhanahu wa ta'ala إن شاء الله تعالى سعود واد بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين يا إخواني إلهي سبحانه وتعالى ما هذا إسكاله مدن أمان إلهي سبحانه وتعالى ماشان اسكول مي كنت فرحتي نفسه كوبي كره ضد وصول إسلام إيمان تان ماشان أنا وحول بقى أنا وهنا إلهي سبحانه وتعالى ضد كل شيء إني ضد قريها أدرنتي نيروبي بقول كيب sagaashan dad guriga ka shaqeeya waa gaala u badan marka runtii aad u farxsan wali saano kale ma arkin inta Nairobi aan joogo ku dhawaad waxaan joogaa 18 sano dad badan ba saasoo kale hal iyo qallama wajad oo qof soo islaamahay waa yaryahay waxaan kala dareemaa inaan ka hadlo gabar maama aan dhahay oo runtii suuqan oo gaarisa loo ku gado meel onbooga kariso ku gado meesh ayaa galabtii markay shaqada ka soo baxday ay socod bilowday gabadhaas maamadaas maamadaada ku qiyaasay 55 jir saasay u wareegaysay dadku waxay u maleeyaan in ay tugsanayso waxay rabtaa in islaamka soo gasho
أبود إلهي أنا يقول فرديو مساعد كان مثل فاروق كوي البرهان أنا مش قارب باكن إكتاس كفرديو ميل أنا مؤذن استفاد إنه مؤذن ويقتها كما ما عتري قبل اللحظة شيء مش شاب قديس وحرب إسلام كان من أسوق له فكان أنا واحد الاثنين شيء حسن الاثنين عد كيسان عن داونين بس ما مدي ويسوي استاكتي عيت الإسلام كربا بس وحنا وسودو عنا قريب عنا إسلام سودو إسلام كدو بانته وحيت الإنسان أن صومر هاي تذكر ويدينا هاي من لقوا إسلام أنت واي إسلي أن ويدينا هاي نيم الحلي غفل الحلي إجتها وده صدرت هذا وحيت المانت وابا ما شاء الله يجري بس ماشي فريسي ميل أو مسايد كأكتس فرقان عن فريسي هاي بالشيخ كوا عن كوري أساق كو إن شاء الله سبب كنا قدام سيدي الشيخ سوى جو دوحان كواعي عن كوري بال توحيد كو قبا أنا لقطة ترجمة ما مساس كوسنا أنتي ولي بس معك أو بحية فلا دور منا سوق أنا جوكتا وحب قدها مركزات درت هذا حالي وحن الله الله سدحس عن الله الله وحنا بري وقبلنا كوسو دريا إذا كوضع عن كوري مال وجينا إن شاء الله تعالى ما مدي شانس عبر مركي هذا أمبلاس قاعد ويحنو استعباني قرتي استركينيات اللي جي مركز داي والله الله وحيتري صوب بوقت داد جعشين عن إسلام كم ده وفي إسلام هاي درت هذا ساس ولا الصعود ما مضى ما قعنا ساوي بحشيخ عايش الله نمر كذا كل قبل كان سيه كل إيدين إن شاء الله تعالى أدي دونا دولا هذا تاسن إن شاء الله تعالى وبحياة وحنقدر دار ما جارهان إسلي دات جريا كله رنتي دات الله معايا لي دين مسؤولة كسارة قف المسؤولة كسارة معايا قف كأسجع النبي صلى الله عليه وسلم وده بلغوا عني والآية قف كأسجع اللغة دات خان إن أشيكتي أترى بل دين سلامك معنا السي أنا أبدأ ودن كأنت جوجي الحمد لله فضلك وحي إلهي صبي قد تتوقف ما شاء الله قارن هذا أنك بحبودين وكيا لما باسا قبل هذا إذا افتكر ماشي جبت بودين لما ينس مد كلام مركز سوء إسلامان يعني إن برتان دينته إسلام كلمة إن دينته برتان هذا ظهر أقوانين هذا دينته أقوانين صلاة أقوانين لبوه تاسن إن شاء الله وكبرني إن شاء الله جزاكم الله خيرا هالكاسة وبحياة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. meeshaan khayrka aan sugu imaanay sheekh xasan alwaajidi iyo sheekha kale magaciisa ma garanayo ee dhammaan wiilasha duubaya iyo gabdhaha khayrka qaba ee ka soo qayb galay walaalada islaamay dhammaantiin waxaan idinku salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam runtii aadaan u faraxsanahay لأنها دد ولا لا وما أنت نقص كردي وحن صاح حسوست يعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يعني سيدي أصحابه وصاصي أفواجا دتك أسوق الجيران مركز طريقي وحاول النبي عليه الصلاة والسلام إن محيطول أمض إن لجارسية دينته إن أمضها كلنا وحن وخير بدنا وحكى لما يعني أمة النبي محمد وحال قربا سيدي هذا الشيخ الشيخ آيدي وكركين كو أخرناي وأهيت كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر يعني ومضاها وخير بدنا هاي إن ضدك وناقفرنه حمانتنا أن كنهينه نبينا عليه الصلاة والسلام وحلا فريسنجر أبو جهل وحلا فريسنجر إلا وقاذي وإلهي سبحانه وتعالى وآيات وكركيس كسود جي وليري ما أردت لبع عمر كي خير له واتو يجري رسول كان عليه الصلاة والسلام سي أن سيرتك قاذنه marka ilaahay ugu soo hanuuniyay marka saas uu dacwada xataa yahuudigi uu u tagay rasuulka kaleey salaatu wasalaam oo gurigiisa ugu tagay isagoo jiran oo shahaado u qabtay marka ina arintaas oo sheekha ma aragtay maanta farxadda leh ee uu noo soo jeediyay runtii waxay nagu noqonaysaa hadaan nahay reer Nairobi dacwo weyn korkeena lagu oogay waxaan ogahay gabdho badan oo meeshan fadhiyo oo kuwa naga maqanba in gaalo guriga nooga shaqeyso محيطولة قبلها سنة آن مانتا ولا غيابة لعق إن لسيه ولا غيابة در إن لسيه ولا غيابة واحد بدن إن لقعاويه لكن إن نارت إلهي سبحانه وتعالى قفك لقعاوي تاسا ما أركتي وتوحيدك أويرتت مركا شيخ أدبن ما أركتي أرنتاس أو فرح سنة هاي قبلها ولا لضي هدية ده أصو هدية وحن لا جزاكم الله خيرا إلهي ميزانك حسناتك الله يدين سارو كلن كان إلهي سبحانه وتعالى و كلن خير قبا إلهي نوغا ديقوكي أن جنة كتغين دمانتين إن حاسك شيخنا آدبان معركة إذنا
ugu shukrinayna ma aragtay qodwadaas ee u noqotay gabdhaha walaaladeeda ee ma anta Nairobi degan ma aragtay aan dacwadii siinaynin marka insha Allah biidnillaahi tacaala waxaan idinka baranay maxay toole maanta waxaan ilaga bartay kulli maamooyinkii way maqlaayeen kuwa kalena insha Allah waxay ka daawan doonaan idaacada marka walaaladeen waan ka gargaaraynaa reekeeyna aad aan u jecelnahay waa shacab aad u fiican marka inaan cadaabka Ilaahay looga soo yeero ummadda taasaan isku gargaaraynaa waan u hambalyeynaa walaaladeen ma aragtay maanta ma diinta islaamka soo galay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله. Nataka kukaribisha wasichana waislamu wenzetu wameingia Uislamu mashaallah. Sisi wa Kenya wote tuko wadugu. Ule Mkristo ule waislamu wote tuko pamoja. Tunaishi pamoja, tunakula pamoja, tunakaa pamoja. Sasa wale wameamua wakuwe dini ya Islamu ni dada zetu, tunawakaribisha. Tunataka kuambia sisi wote tuko wadugu na wadada. Sasa kuanzia sasa tuko dada zetu kama ile amesema mama yetu, kwa sababu sasa tumekuwa na dini moja. Sasa tunawakaribisha sana, tumefurahia vile mmefanya na insha Allah kuanzia hapo hatutawacha hivyo, tutaendelea insha Allah kuendelea mpaka mwisho. Masomo pia insha Allah tutatafuta mahali ya kuzidisha kusoma, hatuwezi kuacha tu hivyo insha Allah. Na tunawakaribisha wote wale wako hata nyuma yetu, nyuma yenu, sio nyinyi tu, zote tuko ndugu na wadada. Karibuni sana, nitawaambia hivyo. Tumefurahia hivyo. Mwalimu wetu, unaona shekhi yetu kubwa pia amekuja kuheshimu nyinyi kwa sababu umeshika dini, umeshikwa, ndio kwa sababu hiyo wameheshimu sana mpaka amekuja kuwaletea zawadi. Pia sisi tunafurahia, tunaambia karibuni sana. Asante sana. كان صوب حي سنتين وسكر كان صوب كله محبة جعل إذن قبانا أصوب. Shaka anasema hii yote, unaona hao watu wote wamekuja juu ya nyinyi kuwakaribisha, kuwafurahia, kuonesha tuko pamoja, yani sio tunawacha tu yani kado. Wanasema wote tumekuja kuona wasichana, kukaribisha na kusema thank you na muingie Islamu dini inshallah. Shukran, jazakumullahu khair. Nawasalimia nyote, assalamu alaikum. Mimi nimekaa around 10 years na Wasomali, lakini sana mimi upenda hii dini. Hata saa ingine nakutana tu na watu njuu nimezoea kujifunga kama wenyewe. Wananisalimia assalamu alaikum, nashindwa niseme aje. Nasema tu mzuri. Ananiangalia na nusa, wewe si Muislamu? Hapana. Na umewacha wapi? Na nyamaza tu. Lakini nashukuru Sheikh kwa kutumiwa na Mungu kuniingisha kwa hii dini. Sikuwa najua, lakini mimi upenda sana mjuu. Hata asubuhi vile nimesikia tunakuja huku, nimepikia mwenye nilikuwa nakaa na yeye, hata hakunifukuza. Mimi nilimwambia tu sitaki kazi yake. Hata wameongea na Fatuni, akamuuliza ni ukweli huyu mama amekuwa Muislamu? Akamwambia Sasa mpaka akaniambia nimeshukuru, hata sioni ubaya umetoka kwangu na ukaenda kuwa Muislamu, ni Mungu tu amekutumia. Sasa mimi nimeshukuru kwa kunikaribisha kwa hii dini. Nitafuata tu maagizo yote ya Waislamu, na naomba tu hata Mungu anguse tu watoto wangu waingie Uislamu. Mimi sina bwana, mzee wangu aliniacha 2013. Sasa mimi ustrangu peke yangu, anashukuru Mungu sana. Thank you. Mimi nimefanyia Waislamu hii mwaka 3. Jinsi ya kuingia kwa dini ya Islamu ilikuwa ngumu. Sasa nikaja kwa ushe kufanya kazi. Akanisilimisha, akaniambia niwe mmoja wa Waislamu. Sasa mimi umenikaribisha. Bismillahirrahmanirrahim. Waxaa loo baahan yahay gabdhahaas markay hadda saa u islaamaan oo diinta qaataan oo dad muslima noqdaan, waxay nooga baahan yihiin inaga xujo inagu ogantahay, laanahu sideeda sadaqada sinfi Ilaahay Qur'aanka nooga sheegay waxa kamid ah mu'alifatul quluba ku jirta. Waxaa loo baahan yahay marka dadkeena inteena inta joogto iyo inta idaawan doontaba
gabdhaha in ma aragtay loo sameeyo xagga waxbarashadooda kale la kafaalo qaato mu'alafatul quluubki in loo sameeyo iyaga iyo amsaasha kale oo soo galayaba diinta marka taasna waxaan arkaa inay ma aragtay magaaladeena Nairobi ee runtii ay aad uga maqan tahay adi meelo yar yar oo dadku ku sameeyeen waa jiraan laakiin in la iska xil saaro ilaahina wuu na weydiin doonaa subxaanahu wa tacaala marka inaan dadkan mu'alafatul quluubka ah ee diinti soo galay inay waajib nagu tahay gabdhahanaas inaan ma aragtay wixii awoodeen iyo ragga dhageysan doonaba in ma aragtay gacan loo fidiyo oo gacanta loo fidinay ay noqoto mid tacliina mid iyaga la kafaalo qaato waxa laga yaabaa reerihii ay ka soo tageen inay dhibaato kaga dhacdo oo laga yaabo aabihii inuu gaar yahay hooyadii ninkeedii mashaakil badana oo soo wajahaya marka mashaakilkaas dhan inaan ma aragtay laga kaalmeeyo inagay waajib inagu tahay iyo ma aragtay dhammaan dadka muslimiinta ah ee ma aragtay dhageysan doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ama bacd ilaaha mahadle subxaanahu watacaala xalaqadii waa noo dhammaatay waxaan u mahadcelinaynaa allah jala jalaaluhu allihina waafajiyey khayrkan iyo wanaaggan gabdhaheena saalixaadka mu'minaadka ah oo runtii farxaddii nala qaybsaday gabdhihii mu'minaadka oo usbuucaha hadda soo islaamay soo dhoweeyey waxaan u mahadcelinaynaa thaaniyan gabadhii gurigeeda maanta casuumaad noogu samaysay say farxad u geliso qalbigooda gabdhahan soo islaamay cusub iyo gabdhihii hadiyaadka keenay oo dhar iyo u soo iibiyey oo maanta ka farxiyey iyo walaalaheen oo runtii islaamnimo hadda ku cusub soo galay oo ayka qudhooda yaabsan yihiinoo waayo dee in saan loo jeclaanayo iyo ma umaleynin xaqiiqatan marka sunnadan xasanada inay noo socoto insha allahu tacaala ayaanu rajaynaynaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala muslimiinta waxaan u sheegaynaa khaasatan reer Kenya meel kasta hadda aan joogno Sacuudiga waxaan ku arki jiray xaafadaha waxaa ku dhisnaa lagu samayn jiray makaatib ad-dacwa wal irshaad xaafad kasto maktab ay lahayd dadka oo darowliinta ah dadka oo waxa weeye gaalada markaa soo islaamo kitaabada loogu taabaco kitaabada ay diyaarsan yihiin maanta waxaa muhiim noo ahaan la runtii in soo hadda Kenya dhan ilaa hadda ma arkin waan rajaynaynaa insha Allah tacaala inaynu sabab u noqonana wax hadda naga cilnaaba yaraatay ma jirto hadduu rabbi uu nagu caawiyo subxaanahu wa tacaala in la helo maktab ama guri waqaf ah oo kitaabadii nooc kasta lagu daabacayo gabadh markay saan soo islaamto ama wiilka markuu soo islaamo meel ay khamiistii imaan karaan duruusi lagu siin karo oo tahaarada lagu baraayo gabadha dacyaada ay joogaan oo mar waliba ay ku xiran yihiin in la helo insha Allah tacaala waan rajaynana biidnaahi tabaaraka wa tacaala gabdhahana meel kasto gabar muslima hal haday noqoto soo islaamto meel kasta ay joogto oo Kenya gudaheeda ah waxaan diyaar u ahay shakhsiyan inaan xafladeeda ka qayb galo kelimadeena ka jeedisto dhiirigeliyo insha Allah tacaala inta kalena ilaahay inoo hanuuniyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala gaalada dhan inuu ilaahay soo hanuuniyo jannada wayna wada deeqaysahay kulligood inuu ilaahay hanuuniyo subxaanahu wa tacaala oo diinta ilaahay soo wada geliyo ilaahay waxaan weydiisanaynaa jalla jalaaluhu inuu annakana naga dhigo asbaabtii ay ku soo hanuuni lahaayeen اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وحنما دعينا تيفيغا شرفت له SSTV وأنا ما هذا رنتي مرولبا نقع ويوفافنت خيرك وبدون شروط TV هالكلام برك لو يرو العق يحسسيه بيكون هان وقت يكون حسابان لكن ولكن النور أن سنتين كجرنا مرولبا بقع كستا أن جوجو يحافظ كستا أن جوجو بركان أبا هذا أن الله هذا إيم هذا مركرر TV بعض TV iyo waxa warbaahintan waxaan leenahay Allah idin barakeeyo warbaahinta kale waxaan leenahay SSTV inay ku daydaan oo sidaas oo kale khayrkii ay u faafiyaan oo isu caawiyaan ilaahayna wuxuu leeyahay wa tacaawanu 'ala al-birri wat-taqwa wa la tacaawanu 'ala al-ithmi wal-'udwan wa sallallahu wa sallama 'ala nabiyyina Muhammad